ها شاتيغو iska siiba Soomahan wuxuu yiri kaligay baa dharka iska siiba waa Fariid waa wiil Soomaha kaligay dharka ma xiran karo hooyo ay caawiso hooyo ma idin caawisaa macallimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis ayaa qortay boog ay wax ku barayso luqadooda hooyo ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya magaceedu waa macallimad Deeqa Muxudiin Geedi waxa ay qortay boog caruureed ay luqadooda hooyo wax ku barto ubadkeeda iyo ubadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis boogaasi ayayna ugu magac dartay waan weynaaday boogaasi ayaa caruurta tusinaya sawiro dad midabkooda leh waxaana ku qoran sheekooyin caruurta tusinaysa inay awood u heli karaan in luqadooda bartaan iyagoona ilmaha ay dhiirigelin isku filnaansho ah ay ka helaan akhriska boogaasi ubadka inta badan akhrista boogaasi waan weynaaday ayaa hadda u muuqda kuwa gaaray isku filnaansho dhanka afkooda dhaqankooda iyo diintooda ah iyadoona sidoo kale macallimad Deeqa ay booqato maalin walba iskuulada xanaanada ee Soomaalida maamusho iyadoona ardayda Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay bartaan afkooda diintooda iyo dhaqankooda waana tana iyadoo sharaxayso sababihii ku kalifay inay qorto boogaasi waxaan daneynayay caruurta Soomaaliyeed inay ku helaan chance ay ku akhriyaan buugaag ku qoran Soomaali kaliya oo Ingiriis ba lagu lamaanayn si ay luqadooda hooyo muhiimadooda ay u fahmaan sababtoo luqad ciyaalkeen hadda qaar ahaan ku inta ku dhasho first generation ka ah hantidaan naga siin karno waalidiinteen hantida caruurtooda siin karaan waxa weey luqadooda hooyo iyo dhaqankooda iyo diintoodii marka dhinaca diinta Soomaaliyeedna ma sha Allah waa ku fiicannahay ciyaalka dugsiyaal baa la geeyaa diinta waa la baraa laakiin waxaan aniga dareemayaa qaybtii dhaqankeena iyo hidaheena iyo luqadeena ahayd xogaa dadaal in looga baahan yahay marka taas daraadeed ayaa anigu isku qasbay inaan ku qoro buug af Soomaaliya horta sheekadaanay talama ah sheeko xariira oo bilaaw ilaa aakhir leh waxa weey sheeko tilmaamaysa ficilada cunuga qaban karo oo cadeynaysa inuu weynaado marka maxay ahayd sheeko cunuga markuu soo kaco diiniyan waxa weey waa inaan barnaa adkaarta inay sameeyaan soo bisinkan qabsadaa buu leeyahay waxyaaluhu asaga kaligiis uu qaban karo ciyaalka badan hadii la daadihiyo oo timaha loo shaleeyo oo dharka loo qabto wax kasta loo qabto hadhow mas'uuliyad ma qaadi karaan qaas ahaan wiilasha anigana ma sha Allah Ilaahay laba wiil ayuu siiyay marka waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo cunugeyga inuu wiil weyn uu yahay iyo waxyaalaha uu qaban karo asagoo weyn ah wuuna ku faanayaa sheekada waan weynaadu leeyahay aniga saan baan qabanahay Fariid baan ahay saan baan sameeyaa ma sha Allah marka sheekadan waxa kamid ah baalka koowaad ayaan ka bilaabayaa waa kana wiilkii sajaayadu ku fadhiya salliga salaada ma sha Allah wuxuuna leeyahay hurdada markaan ka kaco bisinkan qabsadaa waxaan rabay inaan ku dhiirigeliyo diinta iyo waagi markuu bariyo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tawakkal kula saarto sawirka kale oo aad u jecelahay dadka badana feedback fiican iga soo siiyeen waa sawirkaanay kale qoyska cuntada isla wada cunayaan marka sawirku waad u jeedaa bariis iyo baasta iyo liin dhanaan xataa way saarantaa ma sha Allah marka ciyaalka gacanta wax ku cunaan sida Soomaalida hore ay gacanta ugu cuni jireen marka wuxuu leeyahay sida hooyo iyo aabbo kale ayaan gacmahayga cuntada ku cunaa qamiis kasta waxaan tagaa maalmo daycare baan tagaa buugi baan u akhriyaa dad badan baa ila soo xiriirayaan ciyaalka aad bay u farxaan ma sha Allah tabarakallah waana wadi doonaa insha Allah inta kulli daycare-rada magaalada ku yaalo aan ka tagaayo oo waalidiinta si u helaan chance ay ku arkaan buug Soomaaliyeed iyo ciyaalkii oo xiiseynayaan inay arkaan ugu dambeyntii jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minnesota ayaa hadda u muuqda kuwa soo fahmay faa'iidada ay leedahay in awlaadooda ay baraan luqadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda macallimad Deeqa ayaana hadda u muuqata iftiin u soo baxay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota Abdiraxmaan Atore Nairobi. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.